الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل شروط الجمعة ستة. جمعة شروط ستة لحوي أن تكون كلها في وقت الظهر. جمعة صلاة الجمعة لما أنت دوائنا يدعضو في وقت الظهر. ظهر كوقت يسوي هذا الجمعة وقت جدوا وقت الظهر كواي. وأن تقام وإن لأوغو في خدة البلد بلد كدحدي سواء لأوغو جمعة قضم النقطة حدي جمعة أي كاتكتو ظهر بعد قليني marka jumcada waqtigeedu waa waqtiga duhurka way inay adan noqoto waqtiga duhurka la tukanaya waa koow wa an tuqama fi khiddat albalad magaalada dhexdeeda waa in lagu oogo jumcada waa in lagu tukado magaalada dhexdeeda tuulada iyo baadiyaha iyo jumca kuma ansaxayso wa an tusalla jama'atan jama'a waa in lagu tukado khudbada جمعة صلاة الجمعة وحا شرط إن جماعة لغو تكذو مرة جماعة لهين خطبة يعني الجمعة ما أنصح يسوي شرط وحا جماعة وأن تصلى جماعة جماعة وإن لغو تكذو وأن يكونوا 40 جماعة جمعة كو أنصح يسيتو كنيو أفرتا إني نقضان باشرت وأن يكونوا 40 أفرتن وإنيهين أحرارا أو حرأة ذكورا رقعة بالغين قانقاري مستوطنين ماشا كوضن يا شيء لا يدعنون شتاء ولا صيفا جيلالي قرحين مدنا مقوريا مركا وأن يكونوا 40 خطبة وحا يكون قنتنتو أما يكان صحدا وحا أغير وأفرتن إلي نغط على مذهب الإمام الشافعي سيداوي الشافعي مذهب كيسو وإنay tahay jumcada jamaacada tukanaysa ugu yar 40 weeye wax ka yar ma tukan karaan 40 markay gaaraan bay jumca ku waajibi kartaa hadii shuruudi kale laga helo cadadka way isku khilaafaan aimadu qaar baa 12 shardinayo 12 waa caadi wala ka ansaxaysa si Imam Malik baa laga soo raraya صدن بالورينيا أقوال بدن باكو جيرو دورة عددك حق عددك أنت جمعة أي كان صحيح مركا خلاف كاسنا وحا كيني عد ترى إلا يسكو خلافه وحا كيني النبي عليه الصلاة والسلام يا سقو خطبه مركا هوري الصلاة iyo khudbada salaada horeyn jirtay ka khudbada dib la marinay markii salaadii la tukaday khudbaduna waa arkaanta salaada ka jumcada arkaanteeda kamid tahay waa in la dhageysto waa khudbada qofkii salaada ku waajibay inuu khudbada dhageysto marka asagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbada aqrinayo waqti waxay ahayd Madiina xoogaa la baahan yahay oo yani baahi ay jirtay yaa soo nabigu khudbada aqrinayo jumcadii ayaa safar ba soo galay magaalada safarkana markuu soo galo waxba la garaaci jiray waxba loo garaaci jiray ka khudbadii oo socotay dadkii waxay maqleen dhawaaqi markaas la baxay dadka oo dhan way tageen tiradii ku hartay baa marka la isku khilaafay cadadkii ku haray تابع كهرت مركز رسولك الإساء سيدا إلهي وقرآنك كله في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما هذه أي تجارة أركان أما اللهوي يعني وعيار وحسي أركان انفضوا ويكالتغي ويكاتغيان وتركوك ويكاتغيان قائما أدقوا تاغن وقد بدي أخرين أيو لحظ لأيو أي كاتغيان قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وحاطر هذا قل وحاطر هذا ما عند الله إلهي أكتس وحا هذه وثوابك يا خير
min allahwi wa min atijaara ciyaarta iyo tijaaradan adduunyadaba waxaa ka khayr badan ilahay agtiisa waxaa ahay wallahu khayru raasiqiin inta wax irsaaqdana ilaahay baa ugu khayr badan. marka cadadkii ku haray rasuulka calayhi salaatu wasalaam 40 buu ahaa, 12 buu ahaa, 9 buu ahaa, 30 baa ku hartay. cadadka la isku khilaafay halkaas keentay marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay 40 bay ahaayeen, 40 ka yarna khudbo ma tukan karaan, mana ku waajibayso kama ansaxaysa wey. waa in 40 la helo. 40kaas waa inay yihiin axraar, dad xora waa inay yihiin. addoomaha iyo dumarka iyo midna kuma waajibin jumco, yani qofka hadduu addoon yahay jumcadu waajib kuma aha, wuu tukan karaa, way ka ansaxaysaa, laakiin waajib kuma aha. xalay khidmuu ku jiraayo, khidmada mar sayidkiisa qofkii lahaa khidmadiisa maadaama uu ku jiro, khudbadu waxba waajib kuma aho. dukuuran rag waa inay yihiin, dumarku waajib kuma aha jumcada, way tukanayaan, way ka ansaxaysaa, laakiin waajib kuma aha. baaliqiina waa inay yihiin, 40ka dad baaliqiina waa inay yihiin. caruurtu kuma waajibin yani khudbada jumcadu kuma waajibin, salaada jumcadu. mustawdiniina meesha waa inay ka wadan yeesheen, waa inay degan yihiin meesha. laa yadcanuuna shitaa'an walaa sayfan ilaa lixaaja, yani jilaal iyo yani xagaa midna ma guurayaan ilaa lixaajatin, inay un yani hawagadisasho iyo waxyaala saasay u baxayaan mooyaane meel uma socdaan. dadkaasay jumcada ku waajibaysa. walaa tasbiqahaa walaa tuqaarinuhaa jumcatun fi dalka albaladi, jumcada magaalada hadday yar tahay, magaalo weyn aysan ahayn, hal jumca in laga tukado weeye. jumcadaas laga oogaya halkaas, jumco kalena waa inay ka hormarin, mid kalena waa inay ka dambayn. waa haddii hal meel magaalada dadku isugu imaan karaan. haddaan hal meel la isugu imaan karin way tacadudaysaa markaa jumcada. intii meel isugu imaan karta oo meel bay isugu imaanay. waqtigii nabiga ma jirin lak calayhi salaatu wasalaam jumco tacadudaysa, magaalada hal jumca un baa laga tukan jiray. dee dadkii markuu batay oo islaamkii batay oo dadkii gaaladii qaadi hal masaajid uusa qaadaynin, laazim bay noqotay inay tacadudo wey, markaas ay badato. walaa tasbiqahaa walaa tuqaarinuhaa jumcatun, waa inayna ka hormarin jumcatun jumco kale, walaa tuqaarinhaa waa inayna la xiriirsanin jumcatun fi tilka albalad, magaaladaas hal jumca lagu tukanay. magaalada hadday yar tahay hadii laba lagu tukado mid laga tukado midii horeysay baa ansaxaysa, tagala maya. wa an yataqadamahaa khudbataani, shardi waxaa ah jumcada markii la tukanayo 2 khudbo waa inay ka horeeyaan. haddaan khudbo laga hormarinin jumcadii ma ansaxayso. faslun arkaanu lkhudbatayni 5. labadaa khudbo ee jimcada shardiga u ah, yani arkaantoodu waa 5. khudbada labada khudbo waxaa laga rabaa arkaan bay leeyihiin. markii arkaantaa lala yimaado unbay khudba ansaxaysaa. khudbadii markii ansaxdana jumcadii ba ansaxayso. arkaanu lkhudbatayni, labadii khudba arkaantoodu 5 weeye. xamdullaahi ilaahay oo lagu mahadiyo fiihimaa fi lkhudbatayn, labada khudbaba waa in xamdiga lagula yimaado. wsalaatu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nabiga waa in lagu saliyo fiihimaa fi lkhudbatayn, labada khudbaba. waalwasiyatu bitaqwa, ilaahay cabsidiisa waa in laysu dardaarmo fiihimaa fi lkhudbatayn, labada khudbaba. saddexdaas yani rugni labada khudba waa laga rabaa. qofku waa inuu xamdiga ilaahay ku bilowdo, salliga nabigana waa inuu la yimaado, dadkana waa inuu cabsida ilaahay u dardaarmo. waa in la helo alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah uusiikum bitaqwa llah. wa qiraa'atu aayatin, aayad waa in la aqriyo min alqur'aani, qur-aanka ka mida, fii ixdaahumaa, labada khudba mid ka mida, ama midda hore ama midda dambe. waa in aayad qur-aan lagu aqriyo oy dadku macnahooda fahmayaan, ay wada fahmayaan, waa in lagu aqriyo. waducaau lilmu'miniin, mu'miniinta waa in loo duceeyo, ragga ah, walmu'minaat, mu'minaadka dumarka, haweenka in loo duceeyo way fil akhiirati, khudbada dambe. khudbada dambe waa in duca lagula yimaado, dadka mu'miniinta oo dhan loo duceeyo. 5taas waa arkaanu lkhudba. haddii laga tago khudbada ma ansaxayso.
haddii khudbadii ansixi weydana salaadii eber wey, jumcadina eber bay noqonaysaa ma ansaxayso. marka waa in arkaanta qofka khadiibka ah ee khudbada aqrinaya waa inuu arkaanta ilaaliyo. xamdiga ilaahay waa inuu la yimaado, salliga rasuulka waa inuu la yimaado calayhi salaatu wasalaam. dadka waa inuu ilaahay taqwadiisa u dardaarmo. yani uusiikum bitaqwa llahi keliya waxba shardi maaha, haddii uu lafdi yani amrayo daacada ilaahay uu ku amrayo waa inuu qofku la yimaado. adiicu llaha iyo uusiikum bidaacati illahi iyo axusukum calaa daacati illahi, yani uusiikum bitaqwa llahi ittaqu llaha, laf waxa uu ilaahay daacadiisa amrayo waa inuu la yimaado qofku. saddexdaas labada khudbaba waa laga rabaa. aayad qur-aanka ka mida waa inuu labada khudba mid ka mida ku aqriyo. khudbada dambe waa inuu mu'miniinta u duceeyo, waducaau lilmu'miniina waalmu'minaat fi lkhudbati fi lakhiirati. shantaa waa arkaantii labada yani khudba wey. shuruud lkhudbatayn, labada khudba shuruudoodu 10 toban. alطahaaratu can ilxadathayni alasqari waalakbar, qofka khudbada akrinayo waa inuu daahir yahay. xadath waa inuu daahir ka yahay labadii xadadba. weyse la-aanna waa inuusan ahayn, wax qabays waajibiyana waa inuusan qabin. xadadka asqarka maa awjaba alwudu wey, xadadka akbarka ana maa awjaba alqusla wey. labaduba waa inuu daahir ka yahay. wadahaara can nijaasa, nijaaso waa inuu daahir ka yahay qofka khadiibka ee khudbada aqrinaya. fi thawbi maradi waa dharkiisii u qabay, walbadani badankiisa, walmakaani meeshii uu ku taagay daahir waa inuu. wa satru lcawra, cawradiisa waa inay asturan tahay. khudbadu waa salaada camal qofka khadiibka waa inay cawradiisu asturan tahay. waalqiyaamu, istaag waa inuu ku akriyo cala alqaadiri qofkii awooday. hadduu qofku qof saliim ah, qof caafimaad qaba u yahay, istaag waa inuu khudbada ku akriyo. hadduu macduur yahay oo qof curyaana yahay ama qof macduura u yahay, fadhigiisaasuu khudbada ku akrinaya. laakiin qofka saliimka u hofayow waa istaag inuu ku akriyo. waljuluusu baynahumaa, labada khudba dhexdooda waa inuu fadhiisto. fowqa dumaaninati salaad, salaada dumaaniinadeedii wax ka koreey in xayr ka badan. macnaha khudbadii hore markuu qofku dhameeyo uu fadhiisanaya, wax yar buu fadhinayaa, khudbadii kaluu bilaabay. marka fadhigaas dumaaniinadii salaada markaad sujuuddo intii aad ku xasilaysa ama rukuuca xoogaa lagu xasilaya wax yar bay ka badan tahay. xoogaa yar baad fadhinaysaa markaas kacaysa. waljuluusu baynahumaa fowqa dumaaninati salaad, saas wey salaada xasilkeedii dumaaniinadeedii wax yar ka koreeya. waalmuwaalaatu baynahumaa, labada khudba waa inuu xiriiriyo. labada khudba inaan la kala goynin. khudbadan markuu akriyo dhameeyo wax yar buu fadhiisanayaa, tii kale ku xijinayaa. waalmuwaalaatu haddana waa inuu xiriiriyo baynahumaa, bayna alkhudbatayni iyo wa bayna salaad. labada khudba iyo salaaduna waa inay xiriirsadaan, inayna kala harin. markuu khudbada dambe dhameeyo aqimi salaa, salaaddii baa la gelaya. wa an takuuna bilcarabiya, khudbadu waa inay carabi ku baxdo. wa an takuuna alkhudbatu bilcarabiya walow kaana annaasu acjabiyiin, dadku hadday doonaan cajamiba ha noqdeen, xabad bayayna ka fahmin hadday rabaan. shardi weeye khudbadu inay carabi ku baxdo. khudbada carabi lagu akriyo. marka khudbada loo shardinayo in carabiga ay ku baxdo waa maay? waa arkaanta khudbada, inta waajibka ah wey. arkaanta khudbada hadda aanu soo sheegayni oo yani xamdiga iyo salliga iyo wasiyada taqwada ilahay laysu dardaarmo iyo yani ducada iyo waa in lagu akriyo carabi, waa in lagu akriyo arkaanta wa. qaar ka mida khudbada waa la fasiri karaa, laakiin khudbadii bilcarabiya waa inuu arkaanteedii iyo bacdii khudbadii ka mida waa inuu qofku carabi kula yimaado. wa an takuuna bilcarabiyati, carabi waa inay tahay khudbadu. wa an yasmacahaa 40, 40 waa inay dhegaystaan khudbada. dadkii ay ku waajibtay khudbadu ee ku guntamaysay 40 qof ka yarma gudgayna waa inay dadkaa khudbada maqlaan. qofku meesha intuu iska fuulo hoos khudbo awal wax maqlayba una jirin, may khudbo ma noqonayso. waa inay maqlaan dadku khudbada. wa an yasmacahaa waa inay maqlaan oy dhegaystaan 40. wa an takuuna kulluhaa, khudbada
dhammaanteed waa inay dhacdo fii waqti duhri salaada iyo khudbadan yani salaada ka horeysa iyo salaadii jumcadaba labaduba waa inay waqtiga duhurka dhacaan hadii duhurka waqtigiisi la dhaafo khudba ma jirto wa an takuuna kulluhaa fii waqti duhri khudbada waqtigeedu dhammaanteed waa inay duhurka waqtigiisa dhacdo faslu alladii yalzamu lilmayit maydka waxa ka waajibayo ama u waajibayo 4 khisaalin 4 khislo wey mayd hadduu dhinto 4 shay baa ka waajibi asagayna u waajibaysaa in loo sameeyo dadku ku waajibi asagaa lagu samaynaya mayd qusluhu dhaqidiisa wa takfiinuhu kafanidiisa la kafano wasalaatu calayhi lagu tukado iyo wadafnuhu duugidiisa 4taa way waajibaysaa dadkii ehelkiisa ahaa iyo intii muslimiinta ahaydoo geeridiisa ogaatay iyo ku waajibaysaa waa fardu kifaaya oo hal qof hadduu sameeyo inta kale waajibka uu ka dhici haddii wax sameeyo la waayna waa la wada dambaabi waa fardu kifaaya alladii yalzamu lilmayit maydka waxa u waajibayo 4 khisaalin 4 khislo qusluhu in la dhaqo wa takfiinuhu la kafano la kafanidiisa la kafano wasalaatu calayhi lagu tukado iyo wadafnu duugidiisa aqalu lqusli see loo dhaqayaa marka maydka aqalu lqusli dhaqid inta ugu yar tacmiimu badanihi badanilmayiti wey maydka badankiisaoo lagu camimo weeye bilmaa-i biyo dhaqitaanka inta ugu yar waxaa weye maydka in badankiisaoo dhan biyo la gaarsiiyo la mariyo lagu shubo waa inta ugu yar badankiisa oo dhan waxa daahirka oo dhan wixii korkiisa ku yaalo nijaasana waa laga dhaqaya markaas badankiisa oo dhan baa biyihii lagu camimaya waa qabayska dhaqidda inta ugu yar dhaqidda maydka la dhaqo inta ugu yar wa akmaluhu sida ugu kaamilsan in loo sameeyo maydku markuu dhinto an yaqsila qofkii maydka dhaqaya waa inuu dhaqo saw-ataynkiisa waa inuu dhaqo saw-ataynka waa cawrada wuu istijeynaya macnaha waa inuu istijeeyo saw-ataynku waa qubulka iyo duburka buu dhaqayaa wuu istiijeynaya qofku gacmaha waxbuu gashanaya galofis buu gacmaha gashanaya oo maruu ku xirinayaa markaasuu u istijeynaya wa an yuziila alqadara min anfih markuu u istijeeyo gacmihii markaa kugu jira markaad u istijeynaysa gacanti wixii marada kugu jirta galofis kugu jira iska waad bixinaysaa ku kalaad gelinaysaa markaasaa sanka iyo haddii wax kasoo baxbaxeen dhacaana iyo ama haddii wax kaga yaalo wuu ka nadiifinaya wa an yuziila alqadara wasaqda waa inuu ka zuuliyo min anfihi sankiisa wa an yuwadi'ahu markaasuu u weyseynaya weyse kaama wejiguu rarayaa gacmihii sidii weysada caadi u weyseynaya wa an yadluka badanahu badankiisa waa inuu marmariyo bisidri gob sidri waa wax udgoon geed gobka la yidhahdo wax lagu dhaqo maydka isagoo lagu dhaqayo marka xoogaa wasaqdana wuu goynayaa awaan uu leeyahay udug buu keenaya caraf marka haddii la heli karo waxyaalahan kale waagi horada wax lagu dhaqaayay iyo waxyaalaha ma badnayn de wax baa saabuun iyo wax udgoon baa la isticmaalaya maydka lagu dhaqayo wa an yadluka badanahu bisidri wa an yasuba almaaa biyaha inuu ku shubo weeye calayhi 3 markaasuu saddex u dhaqaya markuu weysada dhammeeyo madaxuu marka hore dhaqaya madaxa markuu dhaqo markaasuu haddana dhinacan midigtoo horeu ka bilaabaya 3 jeer buu biyahaasa u marinaya haddana dhinacan uu marinaya midka hore 3 jeer buu marinaya saasuu marka maydka usoo gedinaya qofka dhaqaya waa in qof laba qofaas isla dhaqayo la qabanayo saas usoo qabanaya halkaasuu haddana dhinaca dambe yuusaa biyaha u raacin 3 jeer buu marinaya haddana dhinaca kale ku marinaya markaad qabaysanaysa waa sunno mogta in saa loo qabayso markaa biyaha madaxaad ku shub madaxaagan marka hore ku shubaysaa dhinacan aad ku hormarinaysaa kasana dhinaca dambaad u dhigaysaa dhinacan hasadar hore haddana dhinaca dambe laakiin maydka saan u yaalaa soo maa soo jeedkan horaa laga dhaqaya dhinacan midigaa marka hore biyaha lagu shubay 3 jeer haddana dhinacan bidixaa lagu shubay saasaa loosoo tiirinaya hore dhinaca dambe haddana saas dhaqaya waa sunno wa an yasuba almaa calayhi 3 baad marinaysa faslun aqalu lkafani thawmun yacumu kafankii maydka waa in la kafanaa la yidhi inta ugu yar waa maxay waa maro maydka kulligii wada qarinayso thawbun yacumu
mara camimaysa way oo meel ka soo jeedsanayna meydku dhan wada qarinaysa intaas ugu yar wa akmalu kafanka kan ugu kaamilsan lirajuli ninkii 3 lafaa'ifa 3 maro dheer dheer baa lagu kafanaya yaasuna 3 maro dheer dheer yaa lagu kafanaya markii meydka la dhaqo la dhamaystiro waliba mara iyo waxa lagu qabto ama shukmaan iyo wax lagu qabto xoogaa la angajiya meydka fiican maxaa yeelay soo biyihii sida oga daayaan hadii kafankii la saaro kafanku wuu qoyaya ka wasaqdii inta baa qabsanayso ma in xoogaa la angajiyo waa fiican tahay mara nadiif ah lagu qabto marka 3 maro dheer dheer baasaa la isu dul saaraya saasaa loo dhigaya 3 maro la isu dul saaraya markaas meydka saa loo dul saaraya tan asaas lagu gadinaya tii kale hadda lagu gadinaya tii saddexaad baa hadda lagu gadinaya 3 maro saasaa loo kafanaya marka hore iyo gadaalna waa laga xiray 3 mara ragga in lagu kafanaa yaa sunna awey haddii loogu ziyaadiyo qamiis iyo cimaamad haddii lagu ziyaadiyona laa ba'as kifaayo lagu siiyo oo lagu dari karaa laakiin 3 maro dheer dheer haddii lagu kafano waa kifaayo walil mar'ati haweenaydina qofkii dumarka ahayd qamiisun qamiis waa dirci ama waa saakadii wa khimaarun masar kii madaxa loogu xidhay wa izaarun izaar hoosgundigoodu waa maxay waa googorodi iyo walafaafatani 2 maro dheer dheer shantaasaa lagu kafanaya dumarka dirac dheer baa loo gelinaya saako gacmo dheera ama cabuur dheer baa loo gelinaya madaxana masar baa loogu xidhaya baa loogu xidhaya izaar waa googorod baa loo gelinaya markaasaa 2 maro dheer dheer baasaa la isu dul dhigayaa baa la dhigayaa markaasaa lagu gedinaya 5 baa lagu kafanay gabadhi oo ragga 3 baa lagu kafanay iyada maxaa 5 lagu kafanay dee markii ay noolaayeen baa iyadaa ka dhar badnayd weeye waa liziyaadati cawratiha dumarka ka cawra badan mogtahay marka way ka dhar badnayd awalba soo mal haddana way ka dhar badan tahay markii la kafanayo meydka 5taasaa lagu kafanay qofka markii la kafanayo waa in lagu kafano dharkaas sida badan dadku kafanka waxay u yaqaanaan un hal mar oo cad oo la soo gooyo dharkan horta qofka waxaa lagu kafani karaa oo sharciga u bannaan wax alla wixii dharkii uu xiran jiray markuu noolaa ee xalaasha u ahayd waa lagu kafani karaa midabkuu doonaba ha lahaado laakiin midka cad baa sunno ah midka cad waa sunno ragga xariir bayn xiran jirin xariirtu xaaraan bay ka ahayd laakiin dharka kale oo dhan way xiranayeen soo ma waa lagu kafani karaa dumarka ayagu xariirta xataa xalaal bay way xiranayeen soo ma waa dhar kastaa lagu kafani karaa gabadhi lagu kafanaya wixii dharkii ragga unbaa loo gelinayna dee oo dee tashabuha u keenaya dumarku dee dharka ragga inay xirtaan waa xaaraane ragguna inay dumarka dharkiisa xirtaan waa xaaraane lianna tashabuh bay keenaysaa isku shabahee لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ونبي الله لعنه الرجل اسكو شبهايو هوينك اسكو شبهاي ولعن الله المتشبهات من النساء هو ناغه اسكو شبهاي بالرجال رجل اسكو شبهاي الله لعنه النبي عليه الصلاه والسلام تشبه maxaa keenay dharkii baa keenay labis taasi rag haday u libisata gabadhi ninkii way isku shabahan hadday sida raggi timaha u jarato u samaysato raggi bay isku shabahan raggina saasoo kale way hadduu dharkii dumarka qaato ama sida haweenkii uu timaha u samaysto tashabuh bay noqonaysaa tashabuh waxay dumarka waa in isku shabihin way ama dhagaha ay wax gashado ama gacmihii iyo soo cilaanto inaan soo marsado waa xaaraan way tashabuh marka de markaas dumarka looma ogolo ragga haweenkuna yani looma ogolo dumarka dharka ragga inay qaataan ay ku labisaan dharkii ragga noociisa oo gaara oo kaliya wixii dhar kale ay ka hoos qabaan ama ay ku gashanayaan dhib male dharkeedina ay ku qabto marka
shantaasaa gabadhi lagu kafanaya marka dharkii ay xiran jirto haddii marka dharkan hadda waxaa laga yaabaa maradii caddayd oo laba maro waa loo soo goyn karaa oo kafankii oo dhan laba maro dheerdheerayda laakiin diricii iyo gogoradii iyo khimaarkii madaxa loogu xireeyey shardi maaha inaad kuwa cad laga dhigo de ayagoo cad la heli karana waaba la heli karaa baan umalaynay kuwii oo cad oo saakadii oo cad iyo gogoradii oo cad iyo baa lagu kafanaya waa la helayahay haddii la waayo shardi meehee dharkeeda gurigooga buuxa ayaa looga soo bixinaya loogu daray lagu kafanaya waa lagu kafani karaa raggana waa sidoo kale faslun arkaanu salaati ljanaazati sabca salaada janaazada ee meydka lagu tukanayo arkaanteedu 7 7 wey alawal rugniga koobaad anniya niyo wey waa inuu niyoodo qofku salaatu ljanaaza waa inuu niyoodo calaa hada almayit hadduu meydku markaa kula joogo meesha yaallo meydkan aan ku tukanaya waa inaad tiraado hadduu meydku qaa'ib yahoo maqan yahay qaa'ib markuu yahay meydku magaaladaas aad degan tahay wixii ka maqan baa qaa'ib la yidhaha hadda magaaladan atlaano dhexdeeda qofkii ku dhinto inaad u tagta mooge ama qabrigiisa ku tukata mooye qabriga ugu taga qabriga korkiisa waa lagu tukan karaa haddii hortaa la duugo qabrigaad ku tukan kartaa haddii yacni kalena waa inuu meeshuu aad ugu tegaysaa laakiin inta oogama tukan karti xaafad kaloo dheer buu ku dhintay halkaasaan uga tukanaya maya qaa'ibku waa wixii magaalada ka baxsan magaalo kaloo ku dhintay ama waddan kaloo ku dhintay kaana qaa'ib baa la yidhahdaayo marka inaad markaa laba shay baad ugu tukan kartaa hadduu u niyoonaysaa janaasada qaa'ibka qofka magaciisii baa lagu sheegay ama magaciisaaba taqaanaa calaa fulaan baad leedahay arduljanaaza niyooda calaa fulaan hebel ama heblo magaciisii baad sheegaysa iyo inaad iska camimto oo aad tiraado amwaadda muslimiinta oo dhan wixii maalinkaa dhintay saasaana fiican على أموات المسلمين على من تصح الصلاة من أموات المسلمين مسلمين أمواتهم أيام إن كنت كذا نيو ذي ناتر هذا وعام بعد كده جالس وحي مالك هاد انتهي مسلمين تودن بعد الجنازة ودعي سامك مركز نيو وشرطي النية الثاني كلبات ركن كلبات 4 تكبيرات أفر تكبيرات بصلاة الجنازة على تكبيرة أخرى سوى تكبيرة إحرام كل وحرني وتحضر الأغنية وتكبير سنة تي لبعض وين صلى النبي قال إيمان عليه الصلاة والسلام وتكبير سنة هذا تكبير سدحاد وين ميت كأو دعاء نساء تكبير أفراد وين وسلام نصين زمركز 4 تكبيرات وين الثالث ركن سدحاد القيام على القادر قفكي أوله جنازة وإنه استاك كتكل قفكي معذور فديك كتكل يا سيد الرابع ركن أفراد قراءة الفاتحة فاتحة دي ولا أغريه تعال وين أغريه أركان تكمل الجنازة أركان تكمل إذا قراءة الفاتحة فاتحة ولا أغريه الخامس ركن الشنات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال الوصل ليه وين ورما الوصل لنا بعد الثانية تكبير طلبات بعد جيد وين وصل لقنعه السادس ركن اللحاد الدعاء للميت ميت كله دعية وهي بعد ثالثة تكبير تصدحات بعد جيد دعاء ويني تكبير تصدحات بعد جيد العب السابع ركن التضباط السلام سلام ثم تكبير أفراد قفة دون تكبير سلام وسلامات كوا سلام نصين فصل أقل دفني دوجد أنت أيام حفرة قديدوي قدوي تكتم قرنيسو حفرة راسو تكتم قرنيسو رائحته رائحة الميت ميت كأوركيس وتحرسه كإلالينيسو من السباع ورابه أما الدباغ كإلالينيسو ميت كده ما كان لقاء ولا كفانو اللي قلت كده وإلا للدوجوي وإلا أصده دوجد أنت أوير واجب بكون عكرا قد ميت وكسو أورين مركي لقلي بحال هدو دون إنه لبحانا وسكلا بحكرين حوالي ديرية ومكاس لكن هذا وكسو أورين ليش أساس تعيد لك الأسكاد اللي أساس الأورين وصو أورياو وسهل ده وحي بالون إنه عمله ده ولا صبح مركا دوجد أنت أوير واقع أقل الدفن دوجد أنت أوير حفرة حفروي قد
تكتم قرنيس رائحة وميت كأرديس وكسورين وتحرسه كإلالينيس من السباع ودباب وأكمله دفنك كأبو كامل قامة وبسطة قامة الميت قد كبا لقضي قد كا وإنه قف دح استاغو قف أن آدنا أدهرين آدنا أقابرين ودحدحاضة وإنه دح استاغو وبسطة هذا وإنه فرها في دي ولي قف دحدحاضة يا إنتو دح استاغو قف رجل لقضي أيو ولي بقعمها ساس لي قد دير ولي في هذا اللي قضاء مؤمن وما لها نجلب الجوج ما لها القضاء مؤمن قد كادر وإلا قضاء قامة وبسطة استاج وقف دح استاجي هي وبسطة ولي بقعمها أوفدي بسطة لي ويوضع خده ميت كدبن كالو دغيا على تراب markii la dhigayo meydka laba nooc baa loo dhigaa maanta qabriga markii la saas loo qodo la dheereeyo yaa eel laxdi baa leeyahay in dhinac laga jeexo marka eel la bixiyo meeshaas la sii saxina meydka iyo shaqi baa leeyahay markii inta dheer la qodo hadana dhexda bartanka laga sii jeexayo hadana hoos oo dhulku haduu adag yahay laxdiga fadli badan eelka dhulku adag yahay ma dumay haduu laakiin dhul jilicsan yahay inuu duma laga yaabayo gees hadii loo qodo waxa laga yaabaa inay meesha duntay moogtaa shaqiga fadli markii saas loo jeexo hadana dhexda laga sii jeexay shaqi baa leeyahay dhulka jilicsan hada loo marka meydka markii la dhigayo dhabanka dhulka loo dhigayo wayudacu khadduhu ala turab dhabanka dhulka loo dhigayo waxa loogu dhigayaa idhaaran li faqri miskiinnimadiisa iyo faqiirnimadiisa ilaahay raxmadiisa u baahan yahay la muujinaya yani firaash looga dhigayo barkin loo soo qax xoolo kasta haduu lahaa iyo haduu madaxweyne kasta aha ya firaashko yara jilicsan ha loo dhigo barkin ha loo keeno ma jirto dhabanka dhulka loo dhigo waliba kafanka saasa looga feedaya markaas la dhigaya dhulka loo dhigay wayajibu waxa waajiba tawjiihuhu meydka in loo jiheeyo ila alqiblati qiblada waa in loo jeediyo dhinaca midiga loo dhigaya qiblada loo jeediyo qiblada loo jeediyo hada loo فصل ينبش الميت ميتك ولا فاقيا لأربع خصال أفر خصال ميتك ولا دوغي هذا إلا صوب هي واجب نغني إلا صوب فاقو لأربع خصال أفر خصال هذا يلعب للغسل قل وحبا أقول ما ميتك إلا أيوه نقينه بيقودك قليل ولا صوب فاقيا مركز على نقيا ولا كفانيا مركز ولوتو كريا إذا لم يتغير وهدوس الدور سومن مركي بيتكي هدا لدوغي وحالي الميتك لما بدقين بو واجب وين لسوقفو ولا بقيا ولا غير إذا لم يتغير هدون الدور سو يتبدلين وين لكن هدو انت اصو مالمود مركو جوغي يعني الميتكي لما دقين لما سوق حنكر هذا انو يتبدل ميتك ولتوجيهه إلى القبلة إن قبلة حقه لو جيدينا والله صوب حنيا وميتك قلدي قبرك جلسي ما حمين أقولين دين عكلي وجدين ميت قبل ما ميت جدين مركاسا كذب على الأولاد والله صوب حنين هدون إسبدلين مركا وميتك أورينا وللمال إذا دفن معه قبرك هدون مال كل عول الله قصة تجمعش اللي جود وين والله صوب حنين والله قفيا قفيا يرمال بمشي يجمعون الله صوب حنين وللمال مال يعني لوقف لأجل المال إذا دفن معه والمرأة هوين يدي قفك الدمر كاين والله صوب حنيا إذا دفن جنينها معها أورب يهيدو عنب أورك قوة دبا للدوبي وأمكنت حياته نولشي سنة ويسور تقلق هذا الله صوب حنيا وقفكها أيضا أور لحظة دمته uurkeeduna weynaa ay uurkeedu weyn yahay shin gaartay oo 7 bilood 8 bilood 9 bilood ay dhimatay waa in la hubsado canuga calooshada ku jiro inuu nool yahay in kale inta la aasan waa in la hubsado haddii uu nool yahay oo dhaqdhaqaaqayo waajib bay noqonaysaa in la jeexo laga soo saaro laba nafood way naftan kala la badbaadinaya markay nafta ka baxday horey bay qolaan intay dhaqan hor boobsiyan bay hore qabriga geliyeen marka uur bay lahayd gabadha canuguna waa noolaa baa leeyahay waa dhaqdhaqaaqayo wayna suurtagali kartaa inuu nool yahay
ولا صوب حينيا ولا فيرنا يعني إنه نولي هيدا نولي الله جاي أبا إنه عنك ولا نولي إذا بدل هو يدو مركي إذا ما تبع عنه بقول كوجي مركي بقول نتابع لي لكن إنه إله هو تلقى لما دمنه دربه ما دمنه وسكت ده هيا والمرأة قبل ما صوب حينيا هو نيدي حاسب ولا صوب حينيا إذا دفن جنينها عنه بأورك جنين كذا كي أورك كذا جي معها معها دي للدوغو أو أمكانه أي سورة بس حياته إنه نوليه دي ده أنت صبري أي دوغني ده نولش إذا ما سورة بس ليه مركز لا سوف فاهم فصل الاستعانات 4 خصال كلمة اللي سو كلمة استعانة وكلمة 4 خصال 4 خصلة مباحة مد بنان شنو هي بنانتها استعانة بنان وخلاف الأولى منه وخلاف أولى معناه ولا الرؤية بس كسمين كراه لكن ولا في عين ومكروهة منه وكراهه إلا سمية وكراهه وواجبة منه وواجب كلمة واجب أول فالمباحة مد بنان هي تقريب الماء بيها سو دوين تدي وحلا مدوا قفك على بيها يسو دوين شيء قاعد يصير وقفك أما صاحبك أما قفك أستقال واحد يسو دوين وإيش كمان مباحة نسقوسه قادو ونقوسه دوين يا مكوكا وخلاف الأولى مد اللي في عينها هي صب الماء بيه ولوش الشباب على النحو المتوضئ قفك ويسيسني وهو يسيسني يا بيها يوش الشباب إن مرة قاعد يوش تاولا قرب هذا ويسكو يسيس يوش الشباب محاولة وخلاف الأولى ما في عنه والمكروهة مد كراهة كراهة يعني خلاف الأولى بكسي درنتها يقول وكراهة وإحنا نبصنا يوان شرعي وما أقول حرام لما جالسين مرتبط إذا بين قال لكن وكراهه وإحنا نبصنا يوان قال كراهه كهذا ما حدا كراهة هي اللي من يغسل أعداءه وعير يويسه تذكر عقيل يويسه ونسكف يو يا سيدي الناس أول سنة وجود غيان عنده ونق هو كراهه والواجبة مثل وواجب هي للمريض عند العجز وقف حنوسنه وحبه ما قفسن كرمه كاين لو سمي واجب ويبا ولو ويسينيا تدب على سينيا ولو قبينيا واجب ويتاس توا واجب وي فصل الأموال التي تلزم فيها زكاة 6 أنواع حولها أي زكاة كواجب يسوى اللح نوع الأموال حوله التي مال كاسو تلزم فيها زكاة كواجب يسوى 6 أنواع اللح نوع وي النعم نعموليدي قيل إيا أري نعموليدي نعم حولها والنقدان لبض العقود ذهبي فضة لبض العقود ذهبي فضة لبض النوع هو العقد والشن والمعشرات كي العشر بحني معشرات وحل هذا راشنك الله وحي راشن هو لبيرته عشر بالوزة يا مودة طبعا كي دال بهالباقة كواجبي عشر بالي عشر وعاكل الله من المعشرات كأيونا كم ده ثمار تمرها تمر إيه عنب مرها اللي واحد مرة هو زكاة لقى بحيه وتمر إيه عنب marka miraha iyo raashinka waxa la isku yiraahdaa mu'asharaat cushur baa laga bixiyo iyo amwaalu tijaara marka lix nooc buu kitaabka hadda u tiriyay an-ni'amu xoolihi saddexdii adduunyo saddex baa laga tirinaya والنقدان labada lacagoodna laba baa laga yani hal baa laga tirinaya afar bin wana wal mu'asharaat waxa la cushur bixinay waa yani raashinkii iyo mirihi waa timirtii iyo cinab iyo amwaalu tijaara tijaaradii حوالي لقى تجارة سنة تجارة دي كو وواجبها ربع عشر قيمة العروض التجارة والركاز والمعدن والركاز مركا سيديد نوع بالله تريا لك هذا الكتاب هو اسكو قبنيا سيديد نوع عدين لقى ديو
هذا النعم حولها هذه هل مثل قصو قال والنقدان لود العقود من حلب كدغ والمعاشرات وحل عشر بحيوا راشنك iyo midahana halbu ka dhigo saddex واموال التجاره بضاعه وحل وحي لا بداعيو la gagadiso codoonaha halbu ka dhigo waa afar يعني عروض التجاره والركاز قالوا waxay duug kufaareed bal qaalo waxay meel ku duugtay baad meel kala soo baxday qaala waddanka sii joogi jirtay wax magacoodii ku qoran yaa meel kala soo baxsatay magacoodii lambarkoodii baa ku qoran Allah iska leh sagadu baad ka bixinaysaa wal macdin tudqalik macdin meelaha macadinta lagala soo baxo lixdaaw ilaa la isugu qabtay lixdaas ay noqonaysaa marka sideed sinfi baa laga dhigaa sideed sinfi yaa laga dhigaa waxa yani ay ka waajibayso zakadu marka lixdaa oo way si la kala bixin sideed bay noqonayaan marxaba marka de mid kastaba waxa ka waajibaysa kuma sheegine xoolaha nicmooleyda geel zakada wuxuu ku gaaraa 5 neef ariyaana laga bixinaya ilaa uu ka gaarayo 25 markuu geelu gaaro baa nirig laga bixinaya geel laga bixinaya bilaabaya arigu zakada wuxuu ku gaaraa 40 neef baa ka waajibay loodu zakada waxay ku gaartaa 30 dibi baa ka waajibay dibi lama jiro labada lacagood lacagta fidada la yiraahdo 200 bay zakada ku gaartaa dahabkuna 20 misqaal buu zakada ku gaartaa 20 misqaal ugu gaar lacagaha hadda la isticmaalo oo dhan fidna ay xisaabayeen $200 $200 gini $200 riyaal $200 oo shilin $200 labada boqol baa zakada ku gaaraya shan baa ka waajibaysa labadii boqol baa shan baa ka waajibaysa muasharaat waxa la cushur bixiyo raashinka iyo midhaha cushur baa laga bixinaya 10 kiintaal marka hadaad hesho hal baa bixinaysa hadii bila kharash ay ku bixin kharash kaaga bixin hal kiintaal baad bixinaysa hadii kharash ka galeen kiintaalkii nus baad sii reebanaysa nus baad bixinaysa hal lor baad bixinaysa أموال التجارة تجارة واجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة بدأ على أي كل واسكم أما نرقد أما راشين قد أما برقد أما وحرة تقضى سند مبال لفيرني سند مركز تجاري ودي وحودي قناعسي سند ودي سند كمركو لما آخر الحول قالوا لي حولها هذا يسمحني انت هذا هيسو يا العقد العقد لو قيمينيا ولا قيمينيا marka intii lacagta ay gaarto baasgada looga bixinay taasgada looga bixinay wixii aad inta sanadka wado dhaba kun bay noqotay $1 baad haysaa Soomaa 25 baa ka waajibay 10 kun baad haysaa fiican wadwaday maxay noqonaysaa 10 kun 250 saas lay wadaysaa 100 kun والركاز والمعدن لعق مال كدغنيد لا سو baxday way ood heshay ركاز ka khumus baa laga bixinaya 5 meelood baa loo dhigi meel baad bixinaysa afarta kala qaadanaysa marxaba معدن kana waa saas oo kale macadinta wala qiimeynaya lacagta ay tahay ku qiimeynaysa ayu hawl loo ma shardiyo markaas laga bixinaya inuu sanad u soo wareegama faslun yajibu sawm ramadan رمضان صوم كيسبا واجبية بأحد أمور 5 بأحد أمور 5 شن الرمض من كمدا يوم رمضان هو واجبا أحدها بكمال شعبان 30 يوما بيش شعبان وإن صدن مع المطمة بيش رمضان كورس شعبان وإن صدن بريء كامل وقت ولا ترني مالك دلتك أرسلوا صدن كبار مات بيش بالأركين الأرك لديه ماي ولا سومية وثانيها كاللبات رمضان كو واجبيه بالرؤية الهلال بشي بالله أركي بالرؤية الهلال بش أركتي ذي بش رمضان بالله أركي في حق من رآه قفك أركي واجب كن غريسة بش رمضان
wain kaana faasiqan faasiq ba ahaadee dadka kale hadduu faasiq iyo warkiisa la qabsan maayo laakiin asagii arkay waajib bay ku noqon inuu soomo leanna wuu arkay. wa haaliثuhaa sababka saddexaad ee soonka waajibinayo bihubuutihi hubuuti اlhilaal bishi aragtideedii baa sugnaatay fii xaqi man lam yarahu qof aan arkin baa waajib ku noqoni. say ugu noqonaysaa bicadli shahaadatin qof caadil aha ka markhaati kaca qof wanaagsan oo caadil ah yidhi bisha anaa arkay qaadiguu u sheegay qaadigu u tegay wuxuu yidhi anaa arkay bishii soo maha markaas wuu amrayaa qaadigu wuxuu leeyahay hala soomo bas waajib bay noqonaysa. waraabicu waa kan afraad biikhbaari cadli riwaaya dad cadlu riwaaye ah mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay kuwaasaa bishii arkay sawaaء waqaca fi lqalbi sidquhu am laa. cadlu riwaaye waxaa la yidhahdaa caruur ama haween dadkaasaa arkay laakiin waa dad lagu kalsoon yahay run lagu yaqaano ah way waajibaysaa marba hadday dadku mawhuuqin yihiin dad lagu kalsoon yahay been aan lagu aqoon hadday yihiin soonkii wuu waajibayaa. ow gayra mawhuuqin bih kuwa cadlu riwaayo laakiin aan lagu kalsoonayn oo xoogaa lagu yaqaanay inay mar been sheegaan yaaba sheegay bishii in waqaca fi lqalbi sidqu adiga hadday qalbigaaga ku dhacdo waa run bay sheegayaan dadka lagu yaqaani maaha laakiin qalbigaaga waxaa ku dhacday waa la filaya caawa inay bishii dhalatay run bay sheegayaan adiga way ku waajibaysaa. qofkii yidhahda war kuwan lama qabsanayana kuma waajibayso asa loo kala qaadaya. wa khaamisuhaa midka shanaad sababka shanaad ee ramadaanka ku waajibayo bidanni dukhuuli ramadaan inuu galay baad malaysay se ku maleeyay bilijtihaad u dadaal fii man ishtabaha calayhi dalik qofkii bishii dhalashadeeda uu ka ishkaal galay oo see uga ishkaal galaya kaan kaana maxbuusan xabsi buu ku jiraa wax u sheegaya ma jiro markaasuu waxbuu xisaabay waktigii uu yani meesha soo galay iyo waxbuu xisaabay inuu caawa bishii dhalatay buu maleeyey wuu soomaya marka soonku bilaabay haddii soonka waktigiisii uu waafaqana de waa sax hadduu soonkii ka hormaray oo markuu dhamaado kadib uu soomana qaduu u noqonaya hadduu ka hormaro laakiin sunno unbuu u noqonaya soonkii ramadaanka waa lagu leeyay waa dambeeya marka ijtihaadkaasu kusoo shantaas sababood mid ka mid ah ayuu soonku ku waajibaa marka bisha faslun shuruudu sixati sawmi soomka ansixidiisa shuruuddeeda 4 ashyaa 4 shay wey qofku soomku ka ansaxaya 4 shardi baa laga rabaa islaamun waa qof islaama muslim waa inuu wa caqlun qof caqli la raba majnuun soomka kuma ansaxay wa naqaa'un daahir waa inuu yahay qofku min naxwi xayd gabadha waa inayna xayl qabin hadduu dhiig hayo soomku kama ansaxay wa cilmun qofku waa inuu og yahay bikowni lwaqti qaabilan lisoom waqtigu waqti soon aqbali kara waa inuu yahay. faslun shuruudu wujuubihi wujuubi sawmi soomka wujuubkiisa shuruudeeda 5 ashyaa 5 shay wey 5 shardi markii laga helo yuu soomku kugu waajibi islaamun qofku waa inuu islaam yahay wa takliifun qaangaar baaliq waa inuu yahay waa inuu qaangaaro wa idaaqatun waa inuu awoodo soomka hadduu mariid iyo xanuunsan yahay ama waayeel yahay aan awoodi karin may video iska bixinayaa wa idaaqatun hadduu mariid iyo xanuunsan yahayna wa idaaqatun awood waa inuu karo awood waa inuu wa sixatun caafimaad marka awoodan ducfiga waxa keenaya waa waayeelnimo awood oo idaaqada xisan waa sharcan baa la yidhahdaa idaaqada oo awoodda oo xisiga macnaha waxaa weeye qofku waa inuuna qof waayeel oo tabar dhigay uusan ahayn uu soonka awoodi karin waa xisigii waay sharcigana waxa weeye waa inay gabadhu daahir tahay oo xayl iyo nifaas waa inay daahir ka tahay haddaynan xayl iyo nifaas iga qabto ma awooda soonkii xagga sharcigayna u awoodi sharcigaa u diiday waa inay daahir haataa shardiga wa sixatun waa inuu caafimaad qabo qofku mariidkii baa baxaya qofka xanuunsan labaa loo kala qaadaya hadduu xanuunkiisu xanuun yurjaa bur-u inuu ka caafimaado la rajaynaya hadduu yahay hadda wuu iska afurayaa markuu caafimaaduu soo qadaynaya hadduu xanuunkiisu yahay laa yurjaa bur-u waa marad laazimaha hayo daa'imahu aan tegayno saas yidha adibadu ma xanuunkan waa xanuun aan tegayno laazima yidha kaas markaa la sugi maayo video unbuu bixinaya marka video bixinaya
وإقامة قف وإنه مقيم يعني هذا مسافر يهي واجب كما اسكا أفوري كرا رخصة إلهي وسي يدو مر مسافر يهي إنه أفورو مركا هدو مقلين يهي هذا دور اسكا سومي كرا لكن واجب كما هي إنه إلا وإلا والله مرضو مسافر فإن كان مريضا أو على سفر فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بإلهي قفك حنوسا أما سفر كجرة ما المكان قضينه سومي فصل أركانه أركان الصوم صوم كأركانتي 3 أشياء 3 شيء نية وإنه النية قفك صوم كليلا هبينك لكل يوم في الفرض صوم كفرض كأها هبينك استوائني نية وإني هبينك تعضوه فرده أدو نية نواجه كابريو مالك صوم كيسو ما انصحي وكاتبي وأنا سوق قضيسا نية ليلا لكل يوم في الفرض حين النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت صيام الصوم كقف كان برسين قبل الفجر فجر انتو نقلن قف كان نيون فلا صيام له صوم ومسلم وترك مفطر وحوح أفري وإنه اسك إلى عليه وحلو أفرونن وإنه كتغو اسك إلى عليه ذاكرا سوى حصوصا مختارا دورتي أو لو إكراهي غير جاهل معذور جاهل معذور أنا هين جاهل معذور وحي مو اسك عني أما اسك سبي وحسو كافرني جاهل بانك أهابو لي جهل معذور ولو عذر داري وإنه ومن معذور كنون كرا وقف قريب عهد هذا سوى إسلام وإنتو كبرتبوا مجوغ أما ولقي من ميل دين لو شيء يمونا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء تسألين ميل بادية أهو دور أهو ولقي واحد دين شيء يوصل مقال أيوكو يجوغي كوا لو عذر داري لكن أسوأ دين تدح جوغي وعلماء تدح جوغي ومالكس واحد المغلاي واحد ما نقول جهل بايجي لقاي يلي ماي لقوا عذر داري ما يقاس مرحبا هذا علمي ليس عذر داري ما أقول لقاي يلي ماي حيل هذا وليبو انتو علمي زيزي هذا يوقف لأركب قريجيسو علمي كل جرا شيخ انت شيخ ادوينه جوجتي شيخ انت اضرب كل جول غرغي كل جوجا سو كمبيوتر كوميا لا شيخ كسو كجرا علمي كسو كجرا كتبت با لو شوي علمي با wax walba ku galiye waxa kale hadii halkaas aad waxba ka aqrin karina hadana wixii aad kula xiriiri lahayd baa lagu sahlay meel alla meeshay joogaan baad kula xiriiraysaa mas'alad weydiinaysaa soo meesha kala joogaad wax ka aqrisan kartaa okay ماشي شيخ وجوبي با انتي wax lagaaga soo duuba inta lagu keenay waad ka soo duuban ka soo qaadanaysa ilmi waad ka soo qaadanaysa gurigaaga keen marka hadda sabab lagu dhihi karo wax ma ba gurigaagi baad ku dhageysani gaarigaagi baad ku dhageysani meesha doontaad ku dhageysan kartaa intaasoo wax fududaad oo yaani hadii ilaahay nasi imkaaniyaad hadaan ka faa'iideysan weyno soo dhawaato ma علم دبا لو مري جري اول لو سفر جري قف او باهن جري او دباتون جري او رفاد جري هذا لكن عمر رفاديس ان اديك laga rabo inaad barato cilmiga muhiimadiisa aad garato وصائم الركن صدحات وي وصائم قف صومن با يعني وين صائم له قف صومن فصل ويجب مع القضاء لصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به قضى واجبي لكن قضاها كفارة للصعود وقرم قفكو هدو صوم كيسي مال رمضان هدو فسح صوم كبرية وحكو بريه جماع حاس كيسي بؤتلي وجماع تام أوليبو وكدن بابي ولا جماعة اسمه كدن بابي هو كدن بابي لأجل الصوم صوم كدرتي سو كدن بابي حلال بحاسس حلال بيو هيدا waxa uu ugu dambaabay waa maalin ramadaan ah soo ka darsi ugu markaas qadana waa laga horraba kow kafaarana way ku waajib al kafaratu al udma kafaara weyn baa ku waajibay kafaaradaas waa inuu adoon xoreey hadaan la helayn lixdan bari inuu soomo way hadaan la helayn haduu awoodi waayo lixdan miskiin inuu quudiyo هذا laga raba ويجب مع القضاء قضاها معيسى وحواجبه للصوم صوم كل قضايا
الكفارة العظمى كفارة وين iyo wa tacziiru waliba ila tacziir qofkaas tacziirna waxa la yiraahdaa wax alla wixii qaadigu raayay qof weyn oo maalin ramadaan soonkiisa fasahaadiyay alla tacziiraya marhaba wax غير مسؤول baatahay baa leeyahay غير مسؤول baatahay marka tacziir buu mutaystay in la tacziiro على من أفسد صومه يا كفارة يا تعزيرته يكون واجبها على من أفسد صومه صوم كيس قفكي فسهادي وبريه في رمضان مال رمضان ورمضان صوم سنة أما مد قضاء أما مد نذر أما ورمضان يوما مال بفسهادي كاملا مال إذا لو كامل فسهادي بجماع بكو فسهادي وحكلا هذا صوم كبر كفارة ماله دوقف عن تعونه وحكلا هذا كو أفرمية وجماع واحد جماع صوت تام وجماع تام أو جماع تام هو لين هدي هو يعني جماع وستام هين أو مقدمات يدون كشيء تتابع شيء ساس صوم كجوي حكلا يبادر كاس كفارة كو واجب يسوي جماع تام إلا هلو آثم به هذا هو إنه كدن بابي جماعة وكدن بابي حقود بابي للصوم لأجل الصوم صوم كدرتي سكدن بابي جماعة وكدن بابي يجري لكن لأجل الصوم هين صوم كدرتي سكدن بابي كده وبحية بدك صوم درتي سأنا هين وكدن بابي قفكم مركم مسافر كيان إنه أفرو رخص أولي ثم شرعي وحقوق بني قفنا مسافر يا رمضان إنه أفرو مركا رخصة دي وقعته هو أفرين مركاسو ما صوم كي إنه الرخصة إنه أفرو لها صومها حرام وكفر لكن حرام وكفر مركا هذا جماعة سوا كدن بابي من جهة الزنا زنا نمدا حرام نمدا وكدن بابي من جهة الصوم معها دين صوم كمان معيلة صوم كمرة دون مسافر يهي وحشرع الرخصة يصير أفرو مركا دين صوم كمان دين كل وكدن بابي كاسمك كفارة مال ويجب وحواجب مع القضاء هذا قضاء معيس الإمساك إنه قف أفهسته للصوم صومكي في 6 مواضع لح جار أما لح جار أسوأ مالك كنا سوى قضيلي مالك مجره مالك أصلا وإنه إسك أفهسته وحما وإنه عنينه وحنا معنا وحما عبي الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره قف رمضان جوجو صومكيسي يعني أفركيسي قدعتي وأفري أفهيسان لي وحبا مالك أصلا أنت كدم من إسك أفهيسان وحبا عن مالك أصلا قال لي هذا ولا قرب الثاني كلمات على تارك النية نية دي بكتجي ليلا هبين في الفرض صومك فرض كأنه هبين كنية ده هيدا نية دي بكتجي وهي المامي مركا مالك أصلا وإسك أفهيسان وحما عناي واجب وإنه أفهيس وحما عناي وحما عبي مالك أصلا وسوق ذين والثالث كصدحات على من تصحر قفك سحورتي وي ظانا أسوى مليني بقاء الليل هبينك إنه ولي جوغو فبان خلافه إن المال انتهي بعدها وسكعني صحبه وسكعني وحكم مليني هبينك إنه ولي واقل لقانو بريبو مركو وحي سيد لما يستي قرح دي ويصوبح دي مرور سوما بس هو اسكاف فيسانا يا مالك أصورنا وحما عنا حما عباي ما انتهى وينو سوقضي والرابع كنفرا على من أفضل قف أفريوي ظانا أسوى ملايين الغروب قرحنا إلى دعل فبان خلافه أيضا حقا يعني عادي وحبا هيدا عاد بقى ضروري وحبا جرت سحابه وسكا أفري إنه قرحنا عدو مولي مركو أفري كدب وحكا نرقي يوارك قرحنا وبناك تعالولي أو تاسكرو جد إنت كدب من وإنه يسكسو وفيسانا يا مالك أصلا وإنه سوقضي والخامس كشنار على من بان له يوم 30 من شعبان أنه من رمضان مالك بش شعبان رمضان كوريس صدق كأهيد صدق كمي أسقوا أهيد وترين يوم أنت على بش رمضان ما صدق أهيد وحا عدات مالك أين رمضان بش إلا أركيبا اللي يقينيهم والكاذي أنا بعكو أهيد مالك شعبان ودم يساد ملايين أين سوق الله يسوي مالك أو إسقاف يسنيسا وسوق الله يسوي وسادسك اللحاد على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق مركات صومنتها مركات ويسيسنيس استنشاق إيا اللغلقشة وإنها ترتيب هذا وحل وإنها نوصمين ترتيب على الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام قال وحل وبالغ في الاستنشاق
كحل ديرو بيها مركز سنك قلنا مركز ويسيسنس هوري وليه مركز صوفر إلا أن تكون صائما إنا صومن تاي ويان حتى صومن تاي مبالغة سمين ترتيب مركز سوى صومن بو مبالغة سمين يحب جيد بيها كتلي أمو قبل بيها كتلي صومك كابرية لأن ألا مبالغة سمين ترتيبا حتى هذا مبالغة سمين أدو أي إنسان اللي يكون دان كام بريه صوم لكن هذا مبالغة سمين صومك كابرية مالك أسواق فيصل إيسا ومسوق قبل إيسا مسوق قبل إيسا فصل يبطل الصوم صوم كي وبرا صوم كمحبرني وبرا يا صوم كبردة نعوذ بالله قال لي بكبرا قف كسوة صوم بسانة من كبح صوم كي سوى برا وحيد حيل بكبرا كمان أيضا صوم بدي كيمن صوم كي وبرا والنفاس بكبرا أيضا صوم بي أمشي صوم كي وبرا أو ولادة نفاس وديك الماء كذا ماني وبريء أو ولادة الماء كسب حيوان ديك ملء وحبا ملء عن كل جيس إسكان كبرش صوم كبريء وجنون وعلبة صوم كبرس ولو لحظة منت بهالنقط منت عقل جيس بهدو إسلام مرة صوم كسب بريء وبإغماء وسكر بإغماء سوحد إيه وسكر كسكي سقف يسكت درمضه وورينه كاسو تعدى به وكد عدي سكرنا أسرع يسكت عدي وحن إغمها يعني أو كسوحية أما أو كوريري ووحو كد عدي وحبو السماية أما حبو مرسلية أما حبو اسمرية إن عما جميع النهار مال كون لنا دوسو حسنات مغناده رمزي أبرز وأنا سوق الله مالك فصل الإفطار في رمضان أفرك رمضان لا أفري 4 أنواع أفر نوعه واجب مد واجبة وإن الأفرتاب واجب كون غني كما في الحائض والنفساء كما دي أيضا صوم من هدو ديك حالك كدعو أما وي أم شو ديك باكيمن إن أفرت واجب ويمد ما صوم من أنكر صوم كيف وكبرمن وجائز من إسكابنان أفر إسكابنان كما في المسافر والمريض قفك هدو مسافر يهي أما هدو حنونسي يهي يعني نباتك لكل من رمضان كي إسكافر كنا شرعي رمسا إلهي إسكافر واي ووقت كلو مركز سومي يوم وقت كلا أيو سومي ولا 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 لا ولا وما لا واجب نماها ولا جائز نماها من ما كما في المجنون كي وال قفكي أسوأ صوم مو كنفت صوم أفركيسو واجب نماها جائز نماها واضح يعني تكليفة لما يبقى وقتك تمرضو مرضو واشي مكلف بمبها ومكلف ندو كبح ومحرم مد حرام إن أفرتب حرام كمان قفوي أخر قضاء رمضان قضاءها لغولها رمضان كتجي قضاء لغولها مركزه دبدجي إنه قليا رمضان رمضان كان لجارينه ودبدجي مع تمكنها أيضا أسروا بكرته حتى ضاق الوقت عنه إلى وقت كعليم بش رمضان كهره يا شن مالمود كتكت أما اللح مالمود ما كتكت إنه قضية الرواية أسوي رمضان كان اللح مالمود ما كتكت إنه أفر حرام وي لأن رمضان كان عدوك وقودا شو قال لنا ولا قال رواية فيديا ويكوه إيماني فيديا كفولس مالك اللي أركب وإن مالك أدار رمضان كان وقودا شو وإن قضيسه مالك اللي أركب وحلجنا كوبر راشين هذا كوبر راشين وين أقول مركزين فيديا كوه واجبين انت كدم من قضاها لقول هذا رمضان كذا كدم من ده إن أفرت وحرام وين الماس وين صومته وأقسام الإفطار أفرك غيبه سنة 4 أفر وهي أيضا ما يلزم فيه القضاء والفدية والأفرتي قضاء فدية كواجب اللبض وهو 2 لبا أفر هذا لبا شيء أفر وأفر تقف وأفر قضانا ولا جربا فدية ولا جربا فيديو الأول الإفطار لخوف على غيره قفبا وحقوق أفر عبس وعبسنا يقف كله إذا نأتي أور كله هاي ذو كله عنو بعلوش يدو كجري وعبسته مركز أفرتي قضى ولا جربا فدية ولا جربا أنت معلومات وكتكتي ويسوق قضيني مالك كسر فدية كدرسة كوبر راشين يبحنس هاي لي نف كله وعبسته أما تيجي المهن نوجينا يسوي مرضى على إربان كاين عنو جيزي ما يعبس هذا النفط وضوء عبسدان قضاء ما لا جربا لكن هذا عنو جو عبسدان
فدية كواجب قضية فدية لغيره. وثاني كلمات الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه وحتى يأتي رمضان الآخر. كانت الشيء نوي رمضان كورا كاتك وحكاتك أدو قضين كرمال قضين رمضان كلا كورش رمضان كاس دمرك رمضان كلا دورش كان هذا الجوال ولا سوميا مركا أونا ماله قضاء فدية لغيره على بدو. الإفطار مع تأخير قضاء قضيه بدب ورجع مع إمكانه إذا أسروا بكرتين وقضيه هذين كوسروا بين وأموه عنو سنة قف إنتاس أما مسافر بوها إنتاس إلى رمضان كلا كرشوا مركز محبوب فيديو كوا واجب ماشي قضيه بالغرب حتى يأتي رمضان آخر. وثالثها كسدحال. وثاني هذا أقسامتي كوباد وي أقسامتي أفرت هيد كي كوباد باللبن نقد موده. وثانيها كي لبعض ما يلزم فيه القضاء قضاء كواجب يسو دون الفدية قضاء بالغرب والفدية ماله وهو يكثر بدية كاس كم مغمى عليه قف انتو صوحي كم مغناي مالك كي ودبو سنة يعني هذا قاس هو بيرسل قضاء بالغرب مالك كاس الفدية ماله. وثالثها كصدحة ما يلزم فيه الفدية فدية بس كواجب دون القضاء قضاء ماله وهو شيخ كبير قف وقف ويل هو كبيرة صونك ما أوله قضاء لك مرة كافدية مبحنية. والرابع كان أفراد لا قضاء ولا فدية قضاءنا لقى مرة فدينا لقى مرة وحلقى مجنون وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنونه قفوا شيء وأسوء سميينكم وعلن وقال لي عذر سيئ من ما كنت عاد كسر رمضان كي قيبا كتكتي أما أسوأ دمبو كتكي مركاسا مير كيسي أسوأ نقضي وفي عنادي سوى قضي اللورن ماي لأنه مكلف لماذا تكليفتي وكبحي قفك مرة دو واشو waxa qofku mukallafka uu ku yahay waajibaadku ku fuulaya waa aqliga mar hadduu tago ilmaha carruurta kale camalku noqonay marka wax lagu leeyahay qadaa ma jiro hadduuna asagu iswaalin wey laakiin wax uu asagu sameeyey sababteeda hadduu ku waashay waa laga rabaa qadiy oo soo qadaynaya laanna asagaa dactihi saabalaay ka dhambi faslun alladii laa yufdiru mima yasilu ila aljawfi sabca waxa wax afurinayo wax aan wax afurinayn lagu afurinayn joof kana gaaray joof waa caloosh alladii midka laa yufdiru aan wax afurinayn oo mima kii ka mid yasilu ila aljawfi joofka gaaraya sabcatu afraad ma yasilu ila aljawfi wax joofka tagay caloosha ka mid joof binisyan hilmaan hilmaan sama wax untay kuma afurin oo jahli waxba mu ogay maqaf oo ikraahi waa lagu qasbay ikraah وبجريان الريق وحن نوفت الراعي وي مما بين أسنانه الكها دحدوده وحي كجري يا عن نوفت الراعي وقد عجز عن مجه إنه طفله كعجزي لعذره وقف معذور وحنوصبها ويل محمد في كرامه عن نوفت وهرون الراعي وحما أفرني وما وصل إلى الجوف وحي جوف كجاري وهو كان غبار طريق وضد بوركي وضد ككعي يا قال حما أفرني وما وصل إليه جوفك وحي قاري وكان غربلة الدقيق بضدة غربل كان يعني مكينة يحبوك شقين يبضل لشي ذا مركزي قال ما أفرني أو دبابا طائرا أبا الدقصيد دولة يا دلقير وحخيار كي سماها قبل يسكون يا دلقير وقاس وانتري كما أفرني سقف أو نحو الحلم منه والله إلهي با أعلم بالصواب سيد الصواب كوتوسا نسأل الله الكريم إلهي وحن ويدي سننا بجاه نبيه نبي سجاهز وحن كبرينا نبي الوصيمي وروحنا بنايا وناسنا أن يخرجنا إنه نقبحي من الدنيا أن يخرجني بشاكو إنه إلهي يقبحي من الدنيا الدنيا مسلما أنا مسلما ووالدي أني اللي بدي والد أحبائي إجعلي ومن إلي أنت ما وحي أنا إيسو نسبة شاكتو شاكو وأن يغفر لي إنه إلهي إيدافو ولهم مسلمين تورن يعني إيا والدين تيدي إيا أحباب تيدي مقحمات ذنوب تواوين إيا والله من هو يرك وسقائر تاو إنه إلهي أضافه وصلى الله الله أنحرسه على سيدنا سيد كان محمدنا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف رسول الله رسولك إلهي إلى كافة الخلق مخلوقة دمانت الله صدره رسول الملاحمها ملاحمت والدقالك يعني الدين تفيدين حبيب الله إلهي حبيب كيسها الفاتح خير كفري الخاتمي ختمي وآلي آل كيسان الله يلو وصحبي أصحاب كيسان الله يلو أجمعين دمان والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا الفاتحة.